5 faa'iido ayuu dareenka u leeyahay baamiyuhu. Baamiyuhu waa mid ka mid ah waxyaabaha aan isticmaalno ama aan cunto ku karsanno ama aan caadi aan cunno. Waxa ugu horeeya faa'iidada ugu horeysa waa qanjirada. Ragga iyo dumarka dareenkoodu yar yahay waxay intooda badan qabaan xanuun qanjirada ah. Baamiyuhu wuxuu soo celiyaa awoodda qanjirada, wuxuuna qanjirada ka dhigaa kuwo dhacaamada si dheellitiran u soo daaya. Marka qanjiradu dhacaamada si dheellitiran u soo daayaan, waxaa dib u soo laabanaya awoodda dareenka lamaanaha. Kelyaha. Haddii qofku qabo kelyo xanuun ama infekshanada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka, awoodda jamaaciisa waxaa ku yimaada daciifnimo aad u weyn. Baamiyuhu wuxuu kelyaha ka sifeeyaa wasakhda si qofku jamaaca u wato isagoo aan wax xanuun ah ku dareemin ama ka dareemin kelyaha iyo habdhiska kaadi mareenka. Sokorta. Markasta cunista macaanku kugu badato, waxaa hoos u dhacaya dareenkaaga. Dadka sokorta qaba iyo dadka macaan cunistoodu badan tahay, awoodda dareenkoodu way daciiftaa. Baamiyuhu wuxuu kaa ilaalinayaa in macaanka aad cunayso iyo cudurka sokortaba dhaawac u geystaan awoodda dareenkaaga. Qaleylka. Dumarka inta badan waxaa ku yimaada ama ka yaraada qoyaanka xubinta taranka sababtoo ah qanjirada dhacaamada ay soo daayaan ayaa yar. Marka qaleylka xubinta taranku badan tahay, waxaa yaraada dareenka gabadha, waxaana gabadha ay dareentaa xanuun xilliga jamaaca. Baamiyuhu wuxuu xubinta taranka ka ilaaliyaa qaleylka si gabadhu aysan u dareemin xanuun xilliga jamaaca. Dhalmada. Ragga iyo dumarka awoodda tarankoodu daciifaan, baamiyuhu si gaar ah ayuu ugu fiican yahay sababtoo ah macdanta ragga waxay ka dhigtaa mid tayo leh, ugxaantana si fudud u bacrimin karta. Sidoo kale wuxuu dumarka ka ilaaliyaa infekshanada iyo cudurrada ku dhaca makaanka, gaar ahaan kuwa ay keento ama kuwa keena dhalmadu inay daahdo. Like saar muuqaalka si dad badan u gaaro. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, subscribe ta ha iloobin.